xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ujeedkoodu ahay xarig jarka iskuulka sare ee General Ciidid oo laga hirgeliyay degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud. Munaasabadda xarig jarka iskuulka sare ee degmada Galinsoor oo wasaaradda waxbarashada Galmudug ay hirgelisay ayaa waxaa goobjoog ahay wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore, agaasimaha guud ee wasaaradda Axmed Nuur Ismaan Cali, gudoomiyaha degmada, xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, wasiiro, waalidiin iyo marti sharaf kale. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Galinsoor Xirsi Muuse Maxamed ayaa ka mahad celiyay hirgelinta iskuulka ugu horeeyay oo dugsi sare ah oo degmadan ay ka hirgelisay wasaaradda waxbarashada Galmudug. iskuulkiina wakaas maanta waa dhammaystiran yahay, ardayda baran lahayd waa kuwa halkaas fadhiya, dadweynaha reer Galinsoor way ka soo qayb galeen. waan aad baan uga mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysatay. waxaan leenahay waa mahadsantihiin, waan uga mahad celinaynaa sababta oo ah qofkii adiga wax ku qabto wax ku tara waxa la rabaa inaad u mahad celisid. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysatay. waalidiintii ka soo qayb galay xafladda ayaa dhankooda codsaday in kor loo qaado wax ka qabashada baahiyaha deegaanka. uu soo marhay maxaladaas kala shaqayntiisa iyo hawlihiisa awalna hore ugu haynay iskuulkii maxay jiray Ciidid. waxaan leenahay Ilaahay mahadiyeen ka gaadho, annaguna waxa loo qabanay waa ilmahayagii iyo deegaankayagii. waana ka mahad celinaynaa, waana maxay hayto kana shaqayn doonaa, waana ka shaqaynaynaa, waana u istaaganahay. waxaan rabnaa inaan waxaan helno waxbarasho hadday tahay iyo caafimaad hadday tahay. isbitaalka waa naga xiran yahay, waa la ogyahay. hooyada irbad dhiig joojin oo lagu dhufta lama arko, ama cadaadaan lala oo lagu lorda ama gaalkacyaa lagu loo meel ka sokaysa ma lihin. in isbitaalka aan daawo u helnaan rabnaa, caafimaadka inaan helnaan rabnaa, iskoolada inaan waxbarasho u helnaan rabnaa. waxa naga dhimanoo guryaha in loo kugu daraan rabnaa, kor in loo qaadaan rabnaa, xaquuqdii aan lahayn baan helnaa. xildhibaan Yuuni Shaare, gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada xildhibaanada Galmudug, ayaa sheegay mahad celin kadib inay ka qayb qaadan doonaan dhankooda horumarinta deegaanka. oo dhaweynayaa bogaadinayaa kana mahad celinaynaa in maanta mashruuca noocaana aan marqaati ka noqono. mashruucan oo ay ka muuqato in wasaaradda waxbarashada hore juhdi u soo gelisay in deegaankan u doorato. waan uga mahad celinaynaa, waa mashruuc aad iyo aad u weyn. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay'adda oo maanta gacan ka geysatay oo mashruucan keentay iyo EU-da. wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Galmudug waxa uu sheegay inay muhiim tahay in degmadan jaamacad laga hirgeliyo. sanadkan arday badan baa waxay ka qalin jabisay dugsigii sare. mudane wasiir waxay u hayaameen Muqdisho iyo Gaalkacyo iyo meelo kala duwan. waxaa laga yaabaa in maartay reerahooda aanay awoodin jaamacad Muqdisho inay geeyaan. waxaan is leedahay marka fursadda jaranjartan mid ku xigto maanta ay u baahan yihiin deegaankan waxa weeye jaamacad. wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa sheegay inay ka go'an tahay wasaaradda waxbarashada Galmudug sidii ay waxbarasho u gaarsiin lahayd carruurta ku nool dhammaan deegaanada maamulka Galmudug. waxaan rabaa inaan meeshaas aan abaaro wasaaradda waxbarashada ee Galmudug. nabadoonka ayaa hadalkiisa waxaa ku jirtay in dawladda Galmudug hay'adaheeda dawliga ah ee wasaaradaha kala duwan ay kuwana been dhaartay ay ka laabtaan, kuwana ay ka laabtaan baaga balaqay. wasaaradda waxbarashada Galmudug ayada ayaa mas'uul ka ahayd iskuulkan quruxda badan in halkan laga dhiso. waxaa kaloo taas mudan in la qeexo 10 macallin oo wasaaraddu ay bixiso ayaa iskuulkan jooga. sidaas darteed waxaan rabaa inay caddahay inaanan annagu aanan ka laaban labada meelood oo la sheegay ee aan joogno deegaankan. haddii ay timaado baahi macallin iyo baahi in iskuulkan iyo iskuulo kaleba la kordhiyo, wasaaradda waxbarashada Galmudug waxay diyaar u tahay inay ka shaqayso. waxay diyaar u tahay in ay meesha ay tahay in lala aado ay la aado, isla markaana ay cadaadis siyaasadeed ay saarto sidii loo heli lahaa adeegga waxbarasho ee looga baahan yahay meel kasta ee Galmudug ka mid ah. Cabdirasaaq Al Cadaala, warbaahinta Goobjoog, magaalada Cadaado.